go'aamada adag ee dawladda federaalka Soomaaliya ka qaadanayso wadamada lagu tuhunsan yahay inay ku hayaan faragelin ayaa sababtay inay ixtiraam diblomaasiyadeed ka helaan caalamka intiisa kale. warbixintaasi waxay noo haya wariyaheena Maxamed Baashe Khaliif. dal walba oo dunida ku yaala waxa uu leeyahay dana siyaasadeed iyo kuwa sirdoon oo khaasa waa sumad aadanaha la socota oo qarniyaal soo socotay. haddana dalalka dunidu waxa dhigaal u ah in diblomaasiyadda madax banaanida ilaalinta xeerka iyo qawaaniinta caalamiga ee lagu heshiiyo in la ilaaliyo. waana sababta loo abuuray ururo ay ka mid yihiin ururka ummadaha midoobay oo ilaasha waxa lagu heshiiyo. xeerarka Geneva Convention ee lagu heshiiyay in dunidu ay ixtiraamto ayaa dhigaal dunidu ay qoratay. Soomaaliya 19 oo dhan kasta ay ka burburtay haddana laga soo bilaabo shirki carta ilaa hadda dawladihii isa soo dhaafayay midba salaan ayay soo saartay siyaasadda dalka. halka maanta laga sugan yahay waa mid aad loo amaanayo. awood la'aanta hay'adaha dawladda ee Soomaaliya ayaa dawladaha ay ka mid yihiin kuwa dariska carabta iyo qarbiga ay ka faa'iideysteen dana badan oo Soomaaliya ay kala hayeen. dadka arrimaha Soomaaliya oo dorasa ayaa qaba in mushkiladda ugu weyn ay tahay in haddii khasnada dhaqaaluhu yaalo furaheeda cid kale ay haysato madax banaanida iyo go'aan qaadashada siyaasadeed ay dheeliyeyso sida uu qabo wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Guuleed. oo gudbi kara waa horta markuu warayso inaad dawladda adiga biilka bixin kartid. qodobkaas waa qodob aad muhiim u ah. waayo markaas waxaad u madax banaan tahay siyaasaddaada. waxaad u madax banaan tahay inaad waxyaalo diidid. waxaad u madax banaan tahay inaad waxyaalo ku dhaqaaqdid. waayo siyaasaddaadu ma moogtahay waxa laga rabaa adiga inaad dhahdid mustaqbalkeena wadadaas ma marayna mana oran kartid. marka labaadna shacabka Soomaaliyeed miisaaniyadii loo baahnaa gacantooda ku jirta. dawladda iminka jirta ayaa si weyn wax uga bedeshay hanaanka macaamilka dibadda iyadoo jeexday wadiiqo cusub ay ka dalbatay dawladaha dunida in wada shaqaynta ay la yeelanayso ay ka marnaadaan ismaqoonin iyo isku xadgudub. dawladaha dariska ee Itoobiya iyo Kenya ayaa muujiyay dabac siyaasadeed. maqaam sare ayaa lagu soo dhaweeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaal ku tagay Nairobi iyo Addis Ababa. ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inay ixtiraamaan Soomaaliya. booqasho oo bishii horaanteedii May 2017 ku tagay madaxweyne Farmaajo magaalada Addis Ababa. Itoobiya ayaa ka mid ah dawladaha ugu ballan furka badan Soomaaliya heshiisyada ay la gasho. ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya ayaa xilligaas qiray inuusan qudhiisu jeclaysanaynin in dawladaha dibaddu ay farageliyaan ismaamuladiisa isagoo ka cududaartay in maamulada Soomaaliya ay martigeliyaan. Federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy and foreign policy. So without the permission and consent of the federal government of Somalia, Ethiopia and none other country should interfere into the sovereignty and integrity of the Somali national state. So I think this, we are very much clear about it. We are ourselves a federal government. Myself, I will not allow any country to directly involve with my regional governments without my consent. So I think the same applies to the Somali nation. And qiyaastii 6 bil kadib Itoobiya waxa uu safray madaxweynaha Puntland oo safarkiisa ku tilmaamay wada shaqayn iyo iskaashi amni oo ku tagay caasimadda Itoobiya Addis Ababa iyo caasimadda ka helay madaxda dalkaasi. waxaan saaka u dhoofayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya oo ku tagi doono socdaal muddo 5 bari ah oo socdaal shaqo oo aan rabno inaan dawladda Itoobiya kala soo xaajoono hawlo badan oo la xiriira dhanka amniga. wadamada carabta oo caasimadda u soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa lagu soo dhaweeyay si heer sare ah. booqashooyinkii Sacuudiga, wadanka Qatar, Masar, Turkiga ayaa lagu sifeeyay kuwa nooceeda soo dhaweyn ay aad u sareysay. Soomaaliya oo ku taala marin muhiim ah iskuna xirta Afrika iyo wadamada khaliijka qaarkood oo xeebta xad ay ka wadaagaan ayaa markale ay saameyn adag ku yeelatay khilaafkii ka dhex urtay wadamada khaliijka kaasoo Soomaaliya
ay go'aan dhexdhexaadnimo ka qaadatay dowladda ay ka mid tahay imaaraadka ayaan soo dhaweynin darafka Soomaaliya istaagtay faragelin siyaasadeed ayaa bilaabatay imaaraadka ayaana joojiyay dhaqaale uu ku bixin jiray ciidamada Soomaaliya waxaana Dubai ay u aragtay in danaheeda ay ka waday Muqdisho taas oo soo dedejisay inay u daadegaan maamulada Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa diblomaasiyad ka qabowtan imaaraadka ku dhaqantay iyadoo dacwad u gudbisay qaramada midoobay iyo ururka jaamacadda Carabta kaas oo dalabkooda la dhageystay dhawaan ayay ahayd markii imaaraadku ay kala baxeen tababaraya ciidamada badda ee Puntland magaalada Boosaaso iyagoo hakiyay taageeradii ay siin jireen ciidamada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa qaba in dowladnimadu ay tahay in go'aan qaraar laakiinse dalka dan ugu jirto la qaadan karo waxana uu sheegay in madaxnimadu ay tahay ha iyo maya oo la oran karo madaxnimadu macnaheedu waxa ay tahay waa inaad maya iyo ha dhihi kartid waa inaad go'aan adag gaari kartid waa inaadan kursigaada ilaashan waa inaad dalka khatar u gali kartid xataa haday kalifaysid inaad kursigaada ku weysid dadka arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ku foogan ayaa sheegaya in faragelinta siyaasadeed ee Soomaaliya xilligan ay soo yaraan karto haddii go'aan qaadashada dowladda oo ku darban danaheeda Soomaaliyeed ay isku difaacdo laakiin waxaan meesha laga saari karin in xiriirka ganacsi iyo soo jireen ee wadamada u dhaxeeya ay dhibaateyn karto haddii cilaaqaadku xumaado